abbaaro 11 iyo barkii maanta ayay ahayd markii uu dab xoog leh ka kacay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer gaar ahaan kaalin shidaal oo ku taala suuqa Baarsiga ee magaalada Burco. dadweynaha gobolka Togdheer ayaa ku guuleystay deminta dabkaasi waxaana jiray inta la og yahay xasaare xoog leh oo hantiyeed kaasi oo soo gaadhay mulkiilaha kaalintaasi. mulkiilaha kaalinta oo u warramay wariye Amiin Bashiir Nuur oo ka tirsan shabakada wararka ee Caynaba News ayaa sheegay in dabkani ka dhashay tuubooyinka shidaalka oo naqasku ku xidhmay isla markaasna dhaliyay shood sababay inuu dabkani qarxo. waxaana uu mulkiiluhu sheegay inay hanti isugu jirta lacag shidaal iyo dhismihii ay gebi ahaanba halkaasi ku shufbeeleen, isagoo sidoo kalena sheegay inay jiraan dad dhaawacya oo ay dhaawacyo ka soo gaadheen dabkan maanta ka qarxay kaalinta shidaal ee ku taala suuqa Baarsiga ee magaalada Burco. gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Burco Mudane Axmed Cabdi Falay oo isaguna u warramay shabakada wararka ee Caynaba News xilli ay gubanaysay kaalintani isagoo ku jira howlaha gulmadka lagu deminayo kaalinta shidaalka ayaa sheegay inay dadweynaha gobolka Togdheer cadho kula dhaceen dabdamis ay leedahay shirkadda Dahabshiil taasi oo goor dambe yimi goobta ay gulmadka baktiintu ka socdeen. gudoomiyaha ayaa dadweynaha waxa uu sheegay in ay arrintani ka taxadaraan maadaama ay maanta dhacday, waxaana uu sheegay in dadweynaha gobolka Togdheer looga baahan yahay in ay dulqaad yeeshaan dhinac kasta leh si looga taxadaro waxyaabo badan oo ka dhaca goobaha ay mashaqadu sidaas oo kale uga dhacdo. dhanka kalena taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer Salmaan Ducaale Ubaxle Dhagacad oo isaguna ka warramay khasaaraha iyo sida ay ciidanka booliska gobolka Togdheer uga qayb qaadanayeen gurmadka baktiinta kaalinta shidaalka oo iyadu saameyn weyn ku yeelatay isu socodka gaadiidka iyo sidoo kale howlaha ganacsi ee ka socda suuqa Baarsiga iyo guud ahaanba gobolka Togdheer. maanta ayaa waxa uu sheegay in ciidanka booliska ay gobolka Togdheer ay kaalintii la filayay ka qayb qaateen dabkan oo cabsi geliyay inta badan dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco isla markaasna la arkayay isagoo si raab-raaba isugu shareeraya hawada sare ayaa waxa uu gebi ahaanba joojiyay howlihii ganacsi ee ka socday suuqa Baarsiga, waxaana deminta dabkani fududaatay kadib markii ay haamihii shidaalka ee kaalintaasi yaalay iyo guud ahaanba shidaalkii kaalintaasi uu dhammaaday noqdayna mid gubtay. ugu dambeyntii dadweynaha gobolka Togdheer ayaa iyaguna cabasho ka muujiyay arrintani iyagoo cabasho u eeg mudaharaad ka sameeyay goobtii ay halkaasi ka dhacday, waxaanay xukuumadda Somaliland ugu baaqeen isla markaasna ku dhaliileen dabdamis la'aanta muddooyinkii ugu dambeeyay la soo daristay gobolka Togdheer taasi oo ay ku tilmaameen inay tahay mid guuldarro oo ah gobolka Togdheer. si kastaba ha ahaatee muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa ku soo badanayay gubashada guryooyinka iyadoo ay magaaladuna gebi ahaanba ay ka aradan tahay dhinaca baabuurta dabdamiska, walow ay jiraan dabdamisyo gaar loo leeyahay oo ay leedahay shirkadda Dahabshiil oo maanta isagana la gaarsiiyay khasaare aad u badan kadib markii ay dad gadoodsani ay shiidka roobka kaga dhigeen markii uu goobtaasi soo xaadiray. Salmaan Sahal Jaamac, shabakada wararka ee Caynaba News, magaalada Burco.